saddexda May maanta oo kale sanad walba waxaa loo dabaaldegaa maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka. Soomaaliya ayaa ka mid ahayd meelaha maanta laga xusay kadib munaasabad ay ka soo qayb galeen xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaano, wariyaal iyo marti sharaf kale oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. xogayaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed Nosage Maxamed Ibrahim Pakistan ayaa munaasabadan ka sheegay in sanadkii tagay ee 2014 lagu dilay gudaha dalka Soomaaliya in ka badan 5 wariye. sida la socotiin sanadkii la soo dhaafay ilaa 5 wariye ayaa dalka lagu dilay. sanadkana hal wariye oo maartay sida la socotiin gurigiisa loogu galay magaalada Baydhabo, wariye Daawud Cali asagii xaaskiisii la toogtay. xaaladda cabsi ay ku shaqeeyeen wariyaasha Soomaaliyeed ayaa sii kordhaysa sida uu aaminsan yahay Guuleed Xasan Cali Abdidoon oo ka mid ah wariyaasha ka shaqeeya magaalada Muqdisho. dhibaatada ugu badan ee saxafiyiinta haysta waxay tahay dad aadan aqoonin inaad iska ilaalisaa. dhibka ugu badan ee haysta waa kay waxaa laga yaabaa qof walba ee jidka kaaga hor yimaada adigoo gurigaaga u socda ama ka soo baxaya ama gaari kula raacay ku soo ag fadhiistay indhihiina isku dhacaan inaad shaki ka qabto aad isaga iska ilaalinayso. marka dhib taas ka badan oo qof bini'aadam ah uu ku noolaan lahaa ma jiraan qabaa inaad qof walba iska ilaaliso. intii dadkii aad ka dhex shaqayn lahayd adigu aad wax ka dhex raadin lahayd iyaga iska ilaalinaysa. wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayr Maareeye ayaa qaba in waqtiga kan wariyaasha Soomaaliyeed ay haystaan xurriyad saxaafadeed. horumarka jira ee warbaahinta Soomaaliyeed ay sameynayso oo ah marka ugu horeysa sidaan sheegay inay xor yihiin oo ilaa 80% si xornimo ah oo kalsooni ah ay ku shaqeystaan marka laga reebo kooxaha nabadiidka ah dhibka ay ku hayaan warbaahinta. warbaahinteenu baaxad ayay leedahay waana koraysa stationada oo dhan guud ahaan iyo caalam ahaanba aad iyo aad u koray. maanta waxaa jira intaasoo TV iyo idaacadood oo gaara adduunka. dilal, hanjabaad iyo tacadiyo loo geysto wariyaasha Soomaaliyeed ka sukow waxaa jiro caawisho wariyaasha qaar ay ka muujinayaan in xurriyad la'aan mararka qaar ay kala kulmaan madaxda dawladda Soomaaliya sida uu qabo Cabdinaasir Maxamed Cali oo ka mid ahaa wariyaasha maanta ka qayb galay munaasabada lagu xusayay 3 May. inta saale qofka mas'uulka ah ee dawladda ku jiro kala madaxda dawladda inta ugu badan ee ka timaada aan saale madaxweynuhu kala ku jir jiraad qabto lagu yiraahdo ma weydiin kartid wax su'aala madaxweynuhu isaga hadlayo markuu hadalkiisa dhameystana intaas uu ku eegyahay shirka jiray adiga marka waxay dadku is weydiinayaan ku jiro wuxuu madaxweynaha ama qofka mas'uulka ah oo ka hadlay hadana lagu siin inaa ka hadashid meeshaas xorriyada ka maqan oo qofka hadalka uu su'aal ku weydiin lahaa ee qofka mas'uulka dhibaatooyinka Soomaaliya ee dhinaca hadalka marka laga fiiriyo qofka xorriyadu u haysta taas oo kala kamid ah dhamaadka khudbadda wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayr Maareeye ayuu ka dalbaday dhammaanba ka soo qaybgalayaasha munaasabada in qadar daqiiqadaha la xasuusto wariyaasha lagu dilay gudaha dalka Soomaaliya waxaana Allah ugu baryay in dhammaantood jannada uu ka waraabiyo. waa u tacsiyadeynayna aad iyo aad baan dawlad ahaan iyo wasaarad ahaanba uga damqanayna uga xunna. waxaan codsanayaa in loo akhriyo faataxada in dhammaan intii ku dhimatay wariyaha shaqadooda iyo ku jira la dilay kooxaha nabadiidka ay dileen inuu naxariistii janno ka waraabiyo. dawladuna waxay ku hawlan tahay sidii loo badbaadin lahaa wariyaasha. faataxadan u marno walaal faatax. Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada ugu badan ee lagu dilo wariyaasha waxaana wariyii ugu dambeeyay oo Soomaali ah lagu dilay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay xilli habeen ah isaga iyo xaaskiisa. waxaa jira marka qarax magaalada ka dhaco in familka ay wariyaasha gaar ah in familkooda ay soo wacaan in wax gaaray in kale adima ka mid tahay arintaasi familka oo kaliya maahan shakhsi walba ee ku yaqaana ama saaxiibatiin ama xitaa telefoonkaaga haya meel lagala soo xiriirahay ee bulshada ku dhageysata ama ku daawata kamid ah markii wax yar ee magaalada ka dhacaan uu kula soo xiriiraya walaal macaan ma bad qabtaa ma caafimaad qabtaa intaas uu ku weydiinaya. Aways Maxamuud Dilcow Royal TV Muqdisho.